kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba halkaasi aad nagala socotaan wararka waaweyn ee kasoo baxaya gobolka bariga dhexe ayaa waxa ay sheegayaan maraykanka oo leh wejigii dagaalka waa uu dhammaaday hormuusna gacantooda ayay ka bixin doonaan iiraan wadaxaajoodkana waa la gungaari doonaa dhanka kaleto wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan ayaa waxa uu ku sugan yahay waddanka shiinaha ujeeddadu maxay tahay waxaa kaloo rajo laga qabaa in wadaxaajood wareegii labaad ama saddexaad hadba kii loo dhigo la isugu imaan doono dhinacyada maraykanka iyo iiraan kaasi oo la filayo in uu ka dhaco sida wararku loo badinayo labada dal ee ama Pakistan ama dhanka kaleeta dalka Switzerland ayadoo ay jiraanba durbaba qodobo ay kasii hadlayaan dhinacyada oo la rabo in lagu ambaqaado soo afjarista xiisada gobolka bariga dhexe haddaba xaalku haatan siduu yahay wadaxaajoodada laga dhawaajinayo siday miro dhal ku noqon karaan dhinacyadu aragtida ay kala haystaan maxay tahay dhammaan arrimahaasi waxa ila faaqidi doona oo asna si toos ah khadka ugu jira cabdulqaadir qayska madaxa warweyn TV oo alaaba aad uga barateen in halkan wararka ku saleysan bariga dhexe aan wada faaqidno soo dhawow bal wareynta cabdulqaadir iga waran waxyaabaha soo kordhaya saaka ee waagu uu ku bariyay aad baad u mahadsan tahay Sara oo ku salaamaya adiga iyo saaxiibada qiimaha badan ee Somali Coverage TV haddii adiga ay ku tahay subaxnimo oo hadda soo waabariisatay anagu haddaan sii seexanayna waqtigu waa noo habeenimo aad baad u mahadsan tahay marka xigta runtii warweyn ayaa maanta soo baxay iyadoo isha lagu hayay waxa maalmaha soo aadan ka dhici kara xiisada bariga dhexe shalay toole aad ogeyd wixii markaasi sida ay u ciirciiraysa xaaladda la isku horfadhiyay marinbiyoodka Hormuz marqura madaxweyne Donald Trump ayaa 24 saac wax ka badan markii ay socotay markaa howlgalkii xorriyadda uu isagu sheegay saaka boosti uu soo dhigay isla markaana yiri waan hakiyay saacado yar kadibna warweyn ayaa gilgilay guud ahaan warbaahinta kadib markii warbaahinta Axios iyadoo ay soo markaa xigatay saraakiil ka tirsan aqalka cad kuwaasoo iyagu soo dusiyay in wada hadalladu aad ay u dhow yihiin waliba xitaa ay ka dhow yihiin sidii markaasi loo maleynayay waxaana aqalka cad ay sheegayaan in si hordhaca hadda heshiis loo gaaro ayba si xitaa ay markaa saacado qaadan karayso si loo joojiyo dagaalka wadahadallada ayaa si toos ah markaa hadda uga soconaya Pakistan ay dhaxdhaxaadinaysa oo si aan markaa labada dal oo aan toos ahayn aan iraahdo Mareykanka waxaa la tilmaamay isagu inuu u gudbiyay qodobo markaa ilaa iyo 14 warbaahinta qaarkood ay ku sheegtay sidoo kale dawladda waddankaas Iiraan ayaa waxay sheegtay iyaduna inay heshay nuqul ka mid ah page ama halka warqad Donald Trump iyo waliba dawladdiisu ay soo gudbiyeen markaa Pakistan la soo marsiyay saacadaha soo aadan ay ka jawaabi doonto Mareykanku wuxuu sugayaa jawaabta Iiraan ilaa 48 saac gudahood haddii aan u guda galo ama faahfaahin ka bixiyo waxyaabaha lagu heshiin karo oo hadda miiska saaran Iiraan waxa la tilmaamayaa suurtagal ay tahay inay ogolaato kobcinta uraniumta inay joojiso muddo 5 sano ah wararka qaar waxay leeyihiin way ka badnaan kartaa Mareykanku wuxuu joogaa 15 sano ilaa 20 sano Iiraan waxa laga yaabaa inay ogolaato 7 ama 8 ama 5 tiro la mid ah markaasi sidoo kale Mareykanku wuxuu qaadi doonaa cunaqabataynta waxaana la sii deyn doonaa baa la yiri lacagihii laga hayay ama laga xanibay dawladda Iiraan labada dhinac ayaa waxay markaa qaadi doonaan xayiraadda marinbiyoodka Hormuz waxaana lagu dhaqaaqi doonaa dhamaadka dagaalka muddo 30 cisho sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan xayiraadda badda iyo godoominta dekedaha Iiraan ayaa iyaduna la qaadi doonaa muddo 30 cisho gudahood Mareykanka wuxuu xaq u yeelan doonaa dib inuu ugu soo rogo cunaqabataynta ama tallaabo military ayay warbaahinta Axios tilmaamaysaa laakiin dhanka Iiraan sidaas ma dhahayaan laakiin waxa leeyahay cid kasta wuxuu xaq u leedahay in markaa weerar military qaado ama ay xiisada dib u soo celiso haddii dhanka kale uu isagu laazimi waayo laakiin qodobadan waxa la tilmaamayaa inay isla qodobadii hore ay yihiin ma la garanayo markaa sida dawladda Mareykanka iyadu qodobadan ay ku ogolaanayso waqti iyada dhowr toddobaad ay awoodo inay markaasi ka hor ogolaato marka inta ayaa ugu muhiimsan oo cusub markaa Sara way aad baad u mahadsantahay si fiican ayaad u dhigtay waxaa jirta in saad sheegtay adiguba qodobadan muhiimka ah ee wali la isku haya kuwii hore la isku hayay ay yihiin dhinacyada is hayeen waa is hayaan wixii la isku hayeen waa la isku hayaa dabcan wax dambe hadda soo dhalanaya ma jiraan
ilaa ma ay tanaasul dhinacyada dhinac ka mida ay sameeyaan yaa tanaasulay ilaa iyo haatan ayaa la leeyahay waxaa la dhihi karaa tallaabadan dowladda waddankaasi Iran marxaladda ay ku jirta hadda markaad fiirisid waxa waaye waxaa la yidhahdaa waa neef gowracan oo kale geedka ma leexanayo ma jirto sabab ay uga tanaasusho markaa waqti xaadirkan duruufta iyo xaaladda hadda ay ku jirto sababtoo godoomin baa saaran dhaqaale xumo baa markaasi uu wajahaya culays dhaqaale iyadoo uu jiro dadkoodu aad ogtahay duruufahaas oo dhanba waddada keliya ay ku badbaadi karaan waxay u arkaan in ay shuruudahan miiska wadahadalka iyagu ay ku qaataan dhanka kale markaa fiirisid Maraykanka haddii uu shuruudaha sida hadda miiska u saaran ee warbaahinta ay qorayso Axios oo warbaahin Maraykanka u dhow iyadoo ay tahay sidaas loo dhigo Maraykanka u aqbalo waxaan dhihi karaynaa Trump tallaabadiisii ugu dambeysay isku dayay xoog inuu ku furo waxay ahayd isku daygii ugu dambeeyay ismiidaaminta ahaa oo uu rabay in uu ugu yaraan markaasi ka hor inta uusan tanaasulaada samayn uu adeegsado sidaas daraaddeed kaarka markuu ka fashilmayna waxa uu go'aansaday miiska wadahadalka inuu yimaado tanaasul haddii la dhahayo isaga u dhowaanaya marka la eego markaasi waa sax labada dhinacba inay dan ugu jirto markaad fiirisid Maraykanka hadaf buu lahaa waqti xaadirkan hadafkiisu waa ku fashilmay heer dowladda la rido oo nidaam cusub lagu bedelo ayaa laga hadlayay maantana waxaa laga hadlayaa marinbiyoodka Hormuz hal la furo iyo maraakiibta galbinaya iyo galbinaysa iyo waxsaabo sidaas marka waxaan dhihi karaynaa tanaasul haddii laga hadlayo labada dhinacba waa u dan laakiin tanaasulka Donald Trump iyo dowladdiisa aad mudaageedkii ay saarnaayeen inay ka soo degayaan waa haddii ay ogolaadaan waayo haddii inta aan ku sheegay ay ogolaadaan de waa Iran waxaan dhihi karaynaa fursad dahabi ah ayaa soo maraysa sababtoo ah dal cunaqabateyn dhaqaale u saarnaa haddii cunaqabateynta laga qaado lacagihii markaasi ay u soo xaroodaan oo ka xanibnaa waxay awoodi doonaan naftadooda iyo shidaalkooda inay iib geeyaan taasoo markaa faa'iido weyn siin doonta inkastoo madaxweyne Donald Trump isagu uu yiri tartiib ayaa loo qaadi doonaa xanibaadda saaran Iran laakiin Iran warkaasi kuma jirto Iran waxay rabtaa haddii xanibaad la qaadayo 30 cisho gudahood iyagana inay furaan xanibaadii laga qaado wax walba lagu dhameeyo laakiin 2 sano kadib aan qaadaya iyo muddo bay noqonaysaa iyo insha Allah waa samayn doonaa iyo waxaas hore baan uga soo daalay bay tiri marka tanaasul waxaan dhihi karaynaa ismiidaamintiisii ugu dambeysay Trump markuu ku fashilmay isaga ayaa dib u gurasho sameeyay way Axios markii ay ka warantay ka gadaal 14 qodob ee hore loogu heshiiyay in la amba qaadi doono oo arrinta marinbiyoodka Hormuz uu ku jiro kadib Donald Trump warbaahinta ayuu la hadlay kadib markuu asaga soo dhigay in dagaalkii la joojin doono oo maaragtay dhinacyadu heshiis ay wada gaari doonaan kadib baa waxaa la hadlay New York Post waxa uuna sheegay in wada xaajoodiyada wajiga ah oo dhinacyada in la isku keeno ah Maraykanka iyo Iran ay is hor fariistaan ah in ay weli tahay ay yiraahdeen wax degdeg inaan haatan ku sii dhawaaqo oo macnaha ay ka dhigan tahay in arrin weli bisil aysan ahayn oo ceyrin ah marka waxaad bal iga warantaa Trump marka uu saas leeyahay ma haddana inuu isrogu rabaa oo lu kaleeta u laaban muxuu la jeedaa طبعا وصح ترامب isagu inuu markaasi uu hanjabay waxay iska noqotay wax iska maalin la ah hanjabaadiisa iyo waliba hadallada adag ee Trump Iran uu markaasi isagu hawada u marsiinayo laakiin wali waxa jira dhinac kale oo sabab u ah xiisadda kiciyay meesha hadda ay taagan tahay gaarsiiyay dab ku sii shubay waa Israel iyo waliba Netanyahu marka dhinacaasi ayaa la dhihi karayaa waxa uu juhdi ku bixinayaa sidii halka wada hadalka uu yahay mar walba wada hadal la isku dayo Trump dhankaas u dhawaadana waa soo wareegaya Trump waxaana markaas u dhawaadaa dhanka dagaalka marka dhinaca kaliya ee xagal daacin kara ee markaas halista weyn ee Trump beddelaya waxaan dhihi karaynaa waa Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israel inkastoo Trump isagu uu sheegay wada hadal inuu jiro uusan ka hor dhacaynin laakiin haddana wuxuu yiri haddaysan ogolaanin waxa bilaaban doona duqeynta sida markaas isagu uu tilmaamay CBS iyo New York Post intuba uu sheegay marka waxaan dhihi karaynaa isbedbedelka Trump waa inaan la saadaalin karin sababtaas ayaa keenaysa heshiis kasta iyo wax kasta oo la tilmaamo in shaki badan uu isagu markaa uu ku gadaamanaado markaas
sheekada kale xiisaha leh ee arrinta bariga dhexe ku taxalluqda waxa ay tahay Cabbaas Caraaqji wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan oo ku sugan Shiinaha wuxuu la kulmay dhigiisa dalkaasi Shiinaha durbaba wada xaajoodey ay amba qaadeen oo ay ka wada hadlayaan maxay yihiin Iiraan iyo Shiinaha waxa waqtigan isu soo dhaweynaya oo ay ka wada xaajoonayaan aad u mahadsantahay Shiina si aad ogtahay waa markaasi mid ka mid ah saaxiibadiisa ama xulafada ugu weyn uu leeyahay jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan sidaas daraadeed waxaan ognahay Shiina inuu wax walba u sameeyay darbigii ugu dambeeyay inuusan dumin oo haddii ay sirdoon noqon lahaayeen haddii marka waxyaabo kale ay noqon lahaayeen inuu ku caawiyo jamhuuriyadda islaamiga waana sababta keenaysa markaas inuu u arkayo fursaddii ugu dambeysay haddii laga soo takhaluso Iiraan oo lala wareego shidaalkeedii inay ku adkaanayso shidaal jaban inuu ka helo markaas inkastoo aan ognahay dowladaha Sacuudiga iyo kuwa kale khaliijka inuu xogaa uu ka qaato laakiin Iiraan waa kan ugu weyn uu ku tiirsan yahay sababtoo ah wadamada kale marka ay isku dhacaan Shiinaha iyo waliba Mareykanka hubaal Mareykanka ay la safanayaan iyadoo aad ogtahay heshiisyo inay kula jiraan marka wax walba ka xaliif ama isbahaysi istaraatiiji ay u arkayaan marka Shiinaha waana ogeyd markaas dhowr jeer Shiinaha markii la rabay in qaramada midoobe in la marsiyo qaraaro kala duwan oo la rabay marka in lagu dhaleecayo ama ugu yaraan xoog lagu furo Maribiyoodka Hormuz dhowr jeer buu ka hor yimid oo veto uu saaray booqashadan waxay imanaysaa waqti madaxweyne Donald Trump isagu dhawaan uu tagi doono Beijing oo la filayo dhinacyadu inay kaga wada hadlaan waxyaabo muhiim ah marka fursad dahabiya ayaa markaas Iiraan u arkaysa waqti xaadirkan ay ku soo beegantay doorasho marka la eego booqashadan iyadoo inay kala hadasho waxyaabaha muhiimka u ah waqti xaadirkan Shiinahan uu sheegay waxa uu yiri wadada kaliya ee wax lagu sameyn karo waxaan dhigi kareynaa buu yiri wada hadal Iiraan wuxuu ugu baaqay in wada hadal toos ah ay la gasho Mareykanka isagoo raba markaas xiisadda in la qaboojiyo bedelkeedii inta Iiraan ay burburi lahayd madaxweynaha dalka Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa waxa uu sheegay inaysan marnaba Iiraan ugu jirin booska inay isdhiibto oo waxa haday cid isu dhiibtay ay tahay inay Ilaahay hore isugu dhiibeen haatanna aysan doonaynin inay isu dhiibaan dowladda Mareykanka hadalkaasi maxaa uu la jeeday markii uu soo dhigay bartiisa X-ka dabcan hadalkaas wuxuu la xiriiraa midda koowaad waa marka la eego shacabweynaha dalkaasi fariin ku socota iyo waliba wadamada gobolka oo dhanba isagoo u muujinaya in marka jamhuuriyadda islaamiga Iiraan ay tahay dowlad go'aansatay inay ka hortagto Israel iyo Mareykanka 40 cisho la garaacayay awood ay u lahaadeen inay isdifaacaan haddana awood ay u leeyihiin inay isdifaaci doonaan yacni oo fariin guud ahaan ku socota shacabweynaha ka dhiirigelin ahaan kasoo muujinaysa sida ay ugu adag yihiin isla markaana aysan mowqifkoodu marna uga laabanayn haddii laga hadlayo difaacidda madax bannaanidooda iyo weliba ka hortagista Mareykanka iyo mowqif kasta iyagu ay qaateen sidii mowqifkoodu ay ugu adkaysan lahaayeen marka waa fariin la dhihi karo sidoo kale waxay ku socotaa wadamada gobolka oo cid kastoo malaynaysa Iiraan meesha inay ka baxdo inaysan ka baxayn Iiraan cid kastoo malaynaysa inay daciiftay Iiraan inay ka sii xoog badan tahay sidii shalay ahayd isla markaana la dhihi karayo hogaankoodu waxay yihiin kuwa ka mayal adag sidii marka weerarka uu bilaabanayay oo aad iyo aad soft ugu ahaaya marka la eego hadalka iyo tanaasulka aad baan kugu mahadcelinaa Cabdiqaadir waqtigaaga ma aragtay inaad ila falanqayso xubintan muhiimka ah wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe adaa mudan saar kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Qayska madaxa Warweyn TV oo had iyo goorba aynu wada faaqidno arrimaha ku saleysan bariga dhexe iyo colaadda halkaasi ka aloogsan ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan daawadayaal waxaan naga xusuusinahay in janaladeena kala gedisan Warweyn TV iyo Somali Coverage ba aad ku maqli doontaan ama ku daawan doontaan haddaan iraahdo wararkii ugu dambeeyay ee ku saleysan guud ahaanba caalamka iyo xiisadda bariga dhexe fadlan la soco oo subscribe dheh qaybaheena kala gedisan warbaahintan online-ka ah haday noqoto TikTok haday ay noqoto X-ka haday ay noqoto YouTube-ka Facebook iyo dhammaanba qaybaha kala gedisan ee warbaahintan oo saacad walbaba aan idin la socodsiinayno wararka kuwooda ugu ahmiyadda wanaagsan isla markaasina xaqiiqada ku saleysan guud ahaanba caalamka inta